umada huriniyo noqda habar habar kollay hibashiyo mawayda uqne umada huriniyo noqda habar habar kollay hibashiyo mawayda uqne qaranka harsado qaranka haybada ku gamo qaranka harsado qaranka haybada ku gamo qaranka qulubtahan qudhaho hey ka noqday kan noqday harqura kan noqday qulubtahan qudhaho hey ilaahay baa keligii mahad leh waxaan u mahadnaqayaa dadka qiimaha leh munaasabaddan ka soo qayb galay ee wakhtiga ii soo huray way mahadsan yihiin waxaan u mahadnaqayaa mar labaad bahda suugaanta ama fanka waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxaan doonayaa inaan u mahadnaqo oon isna salaamo ambaasada saaxiibkay baasha cawil oo munaasabadii ugu dambeysay ee magaalada hargeysa aan ku qabtay ee baraarug qayb ka hayo joogay caawana haddana halkan nala jooga intaa markaan ka imaado runtii wakhtiyo kala duwan iyo xilliyo kala duruqsan iyo siyaabo kala duwan ayaa dalkan ku soo gasheen ama waalidkiinba ku yimi waxaa laga yaabaa markii aad waddankan timaadeen in labiska aad xidhnaydeen labis idiin weheliya aanu jirin iska daa hanti iyo dhaqaalo iyo dahab iyo dollar iyo diinaara sidateene haddana waxa maragmadoona waxaa xaqiiqa waxa dhaba inaad kaalin iyo door weyn ka qaadateen nolosha dadkiinna qolqoljoogga ah idinkoo xal iyo maaro u noqday marxaladada adag oo ku xeernaa dhaqaal ahaan iyo dhismo ahaanba oo ku mahadsantihiin maanta waxaad joogtaan UK waxaad hesheen qaabilaad gargaar iyo gacansiin bini'aadanimo waxaanad la xaq iyo xuquuq iyo xeer iyo xaalad noqoteen ummaddii aad dhulkooda timaadeen oo idin tusay inaanay waxba idinka lahayn sidaa awgeed waxaad haysataan fursado aad noloshiina wax kaga beddeshaan idinkoo u shaqaysan kara sidaad kartaan waxna u baran kara sidaad doontaan marka way habboon tahay sida xadaaradda iyo ilbaxnimada ku jirtee halkan laydinku soo dhoweeyey inaad beddelkeeda ka dhigtaan ku dhaqanka qawaaniinta waabad ilaalisaan intaan arkay oo markaa baabuurta wadataan beelkaad xidhataan waxaana dhigataan meelaha baakiniskee loogu tala galay traffic lightiska sinaba ugama gudubtaan highwaygana markaad saaran tihiin xawaaraha waxaad ku xadidaan inta loo xadeeyey idinkoo kamaradaha koonayaasha ku xidhan ka taxadiraya markaa moolasha waaweyn tagtaan ama dukaanada ama meelaha cuntada fudud lagu iibiyo safka si wanaagsan baad u gashaan idinkoo sidii loo soo kala horreeyey in loo kala horreeya doorbidaya markaa guryaha aad degantihiin joogtaanse waxaan kaya qaylada hoos baad u dhigtaan idinkoo deriskiina tixgelinaya markaaad ballamaha xafiisyada ku leedihiin kama habsaantaane waaba degdegtaan intaasoo ficil oo ummad kale kaga dayan karto idinkoo fahansan oo ku dhaqma haddana markaa noo timaadaan idhan nooma noqotaan oo nama tustaan wax badan oo aanu idinkaga dayanno walaalayaal waanu idinka haynaa guryaha waaweyn ee cadcad ee dalkii ka soo dhisteen waanu idinka haynaa meheradaha kala duwan ee dalkii ka furteen waanu idinka haynaa gargaar iyo gacansiin iyo taakulayn wixii danta guuda saa uga qayb qaadataan sida abaaraha sida loo xiirto loo labisto ama loo socdo ciddii dhooftuunbaa cid kale kaga dayataye taana waan idinka haynaa balse waxaan idinka doonaynaa inaad noo soo waaridaan aqoon waxaan idinka doonaynaa inaad noo soo waaridaan xirfad waxaan idinka doonaynaa inaad noo soo waaridaan ilbaxnimo hufan kiina aqoonta leh ee dhakhtarka ah
ama kiina injineerka ama kiina IT-ga bartay waxaan doonaynaa in aqoonta uu bartay uu dalkii ku soo celiyo waayo maanta ma jirto maalin aan uga baahi badannahay aqoon waxa laga yaabaa inaad isleedihiin ama aad niyadda ku haysaan idinka warramo xaaladda dalkii intaa waaba soo koobiyo si guud maran xaaladda dalka idinka warrami idin odhan maayo dalkeennii kamay jirin sixir barar iyo nolol xumo cid kasta saamaysay idin odhan maayo dalkeennii kamuu jirin isdiidooyin iyo khilaafaad siyaasiya idin odhan maayo odayaasha dhaqanka iyo golayaasha siyaasaddu isku saf bay ahaayeen idin odhan maayo dadkeennii badhna fartay malab kula jireen badhna laf bay toobin ku hayeen oo waaba isku duruuf in badan oo xildhibaanadan saaxiibada ee la socda ka mid ah oo doodaha danta bulshada aad uga hadlaa way jiraan haddana idin odhan maayo buuq kastoo golaha wakiilada hadheeya maslaxadda iyo danta ummaddu ka turjumaya idin odhan maayo xeer fuudhiin iyo xeer 23 ujeeddu kumay hoos jirin intaa markaan ka imaado mushkiladda ugu weyn ee dalkeenna haysataa ee dadkeenna haysataa waa qabyaalad intay qoloqolo u qaybsan yihiin qabiilka intay qadarin u hayaan intay qoon hore nabarqodayaan intay qarfajaan u sii qaxayaan intay qasbayaan hiddaha qoom kale miyay qurux iyo yeeshaan quwadoo qoomkiis naca miyay quus iyo qabiiya ka baxan inay qoqomaan intaan idiin sheegayay qabyaaladdu way jiraysaa intay baahida dhaqaale dalkeenna taallo haddii aan saboolnimo baahsan iyo duruufuhu dadkaanay hoggaaminayn fursado iyo jaanisyo qabyaaladdu ay ku shaqayso ma hesheen waddamadan aad joogtaan qabyaaladdu kama shaqayso hadday ka shaqaysana si dadban bay uga shaqaysaa waayo dadku waxay isugu xidhan yihiin sida wax u kala macaashaan innaguna waxaynu isugu xidhannahay si aynu isku xigno sida qabyaaladda looga bixi karaa daraasado iyo cilmi baadhiso badan bay u baahan tahay laakiin waxaan is leeyahay dadka aragtidooda iyo mabaadi'da qabaliga ay aaminsan yihiin waxa lagu bedeli karaa sinaan iyo cadaalad waxa lagu bedeli karaa sharcigoo shaqeeya waxa lagu bedeli karaa sistamka dowladnimo u damarad qaada qofku wuxuu xaq u leeyahay si ku tiirsanaanta reernimada uu uga maarmo ummad ahaan halkayna xanuunaysaa ma aha halkaynu moodano waxaa maqashin hebel baa la magacaabay ama hebel baa la doorto iminkay wax waliba dhag noqonaya hebel iyo hebel xil helay wax walidhag ku noqon maayaan halkayna xanuunaysaa waa sistamkeenna dowladnimo iyo isku milanka qabyaaladda oo aynu isberberyerin waxaynu ka guurnay nidaamkii habeeleedka waxaanan u guurnay nidaam dimuqraadiya oo dunida badankeeda ka shaqeeya oo ah fikri qarnigii 20aad ugu guulaha badnaa sharci iyo dastuur ayaynu qorannay dastuurkaasi aynu qorannay xaqa qofka muwaadinkii leeyahay buu damaanad qaadaya xaqa reebi leeyihiin ma damaanad qaadin haddana masabyada iyo kuraasta waxaynu ku qaybsanaa reernimo shakhsiyan markaa waxaan aaminsanahay waxaynu doonano iyo waxaynu ka shaqaynana inay kala laba yihiin 20 sannadood ugu dambeeyay waxaynu ku soo dhaqmanay nidaamka asxaabta badan nidaam kasta oo aan samaawi ahayn oo dad sameeya marka in muddo lagu dhaqmo waxa soo baxda ceebaha iyo dalbashuqyada iyo galdaloolooyinka uu leeyahay marka waa muhiim inaynu dib eegis ku sameeyno asxaabteena si loo waafajiyo ujeedooyinkii ummadeedan ka lahayn oo ahaa inaynu qabyaaladda kaga baxno inaynu xisbiyada qabyaaladda kaga baxnay iyo inaynaan kaga bixin waa dood kale waxaan jeclahay in idinla wadaago mushkiladaha iyo isdiidooyinka dhexdeena yaalla waxa 100 jeer ka halis badan duulaanada dibadda nagaga socda ee aynaan daadanayn marka ummad wax soo saarkeeda iyo dalagga beeraheeda la beenaya siirka laga bedelaa si baahi loo raacsho marka ummad dhaqankeeda iyo hidaheeda iyo rafaaca taariikhdeeda la tirtirayo marka hore barbaarteeda iyo dhalinteeda ayaa la dooriyaa anshax xasan laga kaxeeyaa manhajkana waa loo dejiyaa waxaana lagu dhex beeraa kuwa iyaga ka mid ah oo afkaar ay aragti kala sida marka ummad jidka guusheedu ku jirto laga leexinayo aqoon-yahankeeda cilmiga dhabtaa laga indha xidhaa kuuga damiirka wanaagsan leh ee daacadnimada ku jirtana talada iyo awoodda waa laga ilaaliyaa marka ummad la burburinayo dhinacyo kala duwan baa laga burburiyaa siyaabo kala gudisanna waa loo burburiyaa
وحال سيمر جيا مشاكلات كده جودها وحنا الواقع بيكو حيس كسور كده وأنا وحبك يشين كرين رنهانتي دلكي إنه مستقبل وين أو إفاي أيوليه سيد الحقيقية وحكو دوغن معدنا فربضان شدال غاز طبيعية ذهب يوحي لها المالا وحاينو لنا هاي حياب دير وحاينو لنا هاي خيرات بديد وحاينو لنا هاي حول النول وحاينو لنا هاي بيو فو حبكو يفلان وحاسو دمي وحيو بهاين سياسة قرن أركتي يحرفت وحيو بهاين أقونتين يخبردين يبقينتين يمالقشيين انت مركان كي مادو فرينتا عن ريال لندن إذا كتير وحويا نساء الله سعوتان يتكور قبتان دل كان أشوكتان يوكي قوم يدا بدن إذا قصوه الرئيسين بالغيابة حسبك كونسيرفتيفكا لولا نادك باكا دحسودا لحظة قف يكون احترتميا يتشغدي وبنير هيس الوزاري وكهر دميا لبا قف وعشاني باكو جيره انت كون شديد بقول سوماليدو باسكيلada ku dhex wadatay London wal yaqaan qoomiyadaha Jamaicanka iyo kuwa Hindida ha u dhaxaynina halkay Hindidu higsanayso higsada oo mid noqda oo waxay suhaanshihiina hoose waxa ka weyn waxay suhaanshihiina guud markaas annagana waxna tari kartaan بشيو مويد هغني مويد هغني ومدى هوريو نقطة هبر كليه بشيو مويد هغني مويد هغني Haybada ku gamo qaranka harsado